markaa maaragtay waxaan dhihi lahaa qof cusub doorta wax cusub doorta dalka wax cusub kusoo kordhiya maskaxdiina ha cusboonaato ciyaalka yaryarka ee saqiirka ee wadanka kusoo koraya waxbarasho qalinka wax ku bara qoriga waxbaa ku barina waxaan arkay shalay toole iyadoo ciyaal yar 200 qori loo gaday oo maaragtay kuwii beenta ahaa photoshopka hadda loo gaday laakiin markaa maxay ciyaalka qoriga ka barisiin xagee usii tababaranayaan 6 jirku waxa fiicnaan lahayd 6 jirka in qalinka wax lagu baro qalinka ay adduunka la iskaga hormaray adduunka dagaalku ka dhamaaday ma garanaysaan marka waxaan dhihi lahaa ciyaalka yaryar aad waxa soo siinaysiin aad waxa baraysiin ka daaya wallahi billahi in bani ma sheegay runtan in sheegay waxaan dhahayaa caruurta ha u dhiibin xabada way ilmaalkan ku dhashaa muxuu ahaa ishag waxa qalin wax lagu baraa adduunka qalin buu ku hormaray qalin buu wax ku fahmay qalin buu maaragtay horumar ku gaaray qalin buu caalamka kula talaabsaday hada qoriga baratid taayir meelaha sunbad waxa noqonaysa ciyaalka oo fadhana meelaha wareega ee burcadbeed lagu sheego ee martay ashaata lagu sheego ee xumaanta lagu sheego noqonaysa marka waxaan dhilaa ilaahay ka cabsada oo caruurta barina waxa madaxweynayaashan dalka ka soo dhanaansadeen waxaan dhilaa ay qaar cusub ka dhanaansadaan ka daaya leerka ka daaya anigu isku qolminiin abti anigu min isku qolminiin ma garanaysa isku heer abti ma ونما Soomaaliyeed oo martay madax dalka ka noqday wadaag baan hayna sharaf waana laakiin dalka ku soo noqdaan wax maragtay ila qurux badan ma dalka hadii wax ka qaban lahaayeen 4 sano hayeen way wax ka qaban lahaayeen isku dhamaad sheekadu hadii wax qaban lahayd nin baa waxa leeyahay ma garanaysa Soomaalidu wax weeyaan maragtay dadka Soomaalidu wax iska leeyahay dhaqan iyo caado ma garanaysa dadka Soomaalidu wax iska leeyihiin dhaqan iyo caado aad wuxuu maaragtay waxa maanta qabsan lahaayeen insha Allah 2000 waxa arkaysa qof Soomaaliyeed oo dhahaya 2021 kan qabanaya sida imka madaxda Soomaaliyeed oo kale ya wallahi billahi baan idin sheegayo hadda waxa nimankan waaweyn ee doonayna xilka Soomaaliya ka qabtaan ee madaxda ah ومدحوا نما Soomaaliya sharaf mudan madax weeyaan dalka xilka soo qabteen abaal baa looga waxay hayeen laakiin qof dhahaya 4 sanadood baa xil hayay wixii aan 4 sanadood qaban waaya dib baan ku qaanay taliya ka aqbalaya maqdad Soomaaliya iska aqbalayaan ya waxa iska dhahaysaa wallahi billahi sanadkii hore waxaan qaban Soomaaliya ka dambe qaban doontaa ka dambe adduunkana joogno lama dhaho waxa la dhahaa sanadkan 2020 heewaygan hadii loogu talagalay in la sameeyo weyn u dhamaado isku dhamaatay haduu heewaygan xitaa ma qabiyo karo xitaa maalin ma dhaafi karo 30 cisho ayaa wada dhan oo inta lagu sameeyaa ya wallahi billahi baan nima sheegay 30 cisho ayaa lagu sameeyaa wada dhan oo dunida la mar hadda waa 30 days oo loogu talagalay 30 cisho quraateen wadanku halka kasab ay ku dhisanto xitaa wax kasta ku baxaan marka madaxweyne dhahayo waxa 4 sanadii soo qaban waaya baan idin qabanaya wala في عيني قبل إنه يحكوا تاجتنا ولا في عيني قرني ما إن الأذور نيدي كره هذه ترى قرني مرة هذا أنا أذوق على ذلك اللي أنت توقس سيدنا دول في عيني قبل كيس كداية إنك بلقى بتشري ما كنت شيء بلقى بتشري وقبيلة قونين ومرد سكن ذيف هذا لك إلا وذا كونين لا تنكابتي بلا هذا الله سيمن ما تجري أربعة ركور رجعت كسلية قبيلة إيه قانونك إيه كلا بحبحة إيه هذا الراعة إيه واحد مية قوم لا رموش هذا أنا لو كنت راتنك عروت وذي الرادي هذا سكر سيء قالنك حلقوا برلا قربا لودي وحلقوا لي يا تكريسين هبل بنكريدين والما يريا مركا حاسس هنقولي لا هذا معان سكان سو ده شيء رتار بعد نقطتي ودويناتي نوين باتهاي محوشة muxuu ahaa dalkii dadkan wuxuu uma qaban kartid xasoo qaban kartid waa soo qabatay madaxweynayaashka cusub ka dambeeya xilka u daa sidoo farmaajo madaxweynayaasha xilka ugu daayo isaguna uu maaragtay ugu tanaasulo ku cusub hadii kale uu ku arkay inaad ku u tanaasulo inta isaguna uu soo sharaxi doona marka waxaan ku dhilaa qof isku tanaasula reemjoona qabiilka iska daaya adduun bay joogna qalinka wax lagu bartay qalinka wax ku barta adduun bay joogna qalinka wax lagu kala qaato qalinka wax ku barta no way rasaasabti no way qori diyaar qori iyo rasaas iyo xabadii hooyo la kubsaday iyo
qarax idinku dul dhacay meena idinku dul dhacday aad wadeen maxaad ka faa'iideen maanta waan isweydiisiin dad maskax qaba iska dhiga maxaad ka faa'iideen TDRs waxa dhibaatadeeda haysata wala idinla qabin dad Soomaaliyeed dad maalin dhinaca ku dhisatiin dad Soomaaliyeed waxay idinka kala ma qolo walba danteeda raacatay idinka kaliya danteena raacan la ma fahanteen oo magaaladiina iyo dalkiina saas ugu geen lahaydeen ka yar la waxaan dheelaa fikra qabiilka iska daaya intiina meesha wada joogtaa wax wada dhista wax wada hagaajista kuwa idinka maqana wanaag iyo walaalnimo ku soo dhaweeysta meel qurux badan oo idinku soo yimaado idinku soo dhaweysto sameeysta ayga talo fahanteen ma baahnidin way 30 sanadood dad qarax iyo dhibaato ku socotay hadday maanta 2020 ka sii fakarayaan in ciyaalka yaraadana 30 sano dambe qori u sii dhiibaan wallahi billahi man gaabnimo aqli xumo iska fikir la'aan mararka qaar naftaada inay ka fikirtid waa fiican amiga ganad ka fikirto fiican madaxweyne kasto yimaada 4 years buu joogaa caruurtiisu ma joogto oodii ma joogto aabii ma joogo gabadhiisu ma joogto fiila Soomaaliya gala wala kormeera wala ilaaliya wuxuba wadmay wax kale in dileen lacagtiisu fadhiga iskaga cunaa oo idinku baashaara oo idinku xaraabaysta kadibna 300 dabaq buu dhistaa ciyaalo idinka dhoofsada adeer tolkiisu dhoofiya cidu doon u xiraa cidu doon u dilaa kadibna idinka tagaawan dadka la isugu soo xaraya waa shacabka iyo dadka dhalinyarta dadka dhimanaya adigu waxaad maalin qura waxaad maqashaa waxa la dilay nin dawladda ku jira waxa la dilay kuwa la dilayna been idima sheegayaga dilown meeyay gudoomiyihiin dhamaa engineer yariso shalaba halka lagu qarxiyay idinku soo taagan ninkaas daacad ugu dhawaa ninkaasna waa tii la qarxiyay markuu qarxay kadib mad aragteen baaritaankiisa cid daba socota cid dawladdu xitaa u sii tacsiidanayso la ninkaas qaran buu ka dhintay dad adag buu ka dhintay ilaahay u naxariisto waa sadaqo loo bixiyo wax la mad aragteen halkii waa lagu ilaalay maanta gudka laga yeelay laaway habli aqliga lahaay soo shaqatigay muqdisho islahay nadaafadooda quruxdeeda wanaageeda muuji wada ogay hodanaa leh waa la qarxiyay waa la dilay حيدي هذا شو ذكي عقل اللي ينسو كعه بس قالن قرنيا والدليا كريم مقدشو نقدايا بدنو نقدا لرك اسكدايا والله اسكصح يستلك ونين شيغانو استلك ماها ننقري وتماها ونن قلنك وتا ما فهمتين ما انتو إنن كستو قربات شوكتي إنن كستو قربات شوك وحو برانيا وحدوني إنو دالكي قلم حكا كسو قادا لكن أفرت مريي ما دين دادك كسو هرايا وداد ديشين ماذي ألمن ماذي إن محوها إيشا قال ماذي أهضنا لاي مي كوركي مار دادكي ألكن كتاقا عقلي قلاي قلنك وحكو برتا إن بد دوني قروح دالك سو سوري ماي والد لي سابت اللود لي أنا حالا مرة بقى دون كان قف صومالي إنو هنقاضو وعقلي يشو إلى أن بينكم في هذا الكونغرس كارد ما أنت العيب اللي دبتها كنتين والدينك كحسين عدنا بوسدي أدون سياسات كانوا نقص أدون سياسات كانوا نوع كلام نقص عتينا في سنة الصوماليين هلا كي وح نقضى ولا كحسين يا بدي وتعالى أنت صوح نقطة كونغرس كبار ستين عدنا بوسدي ولا فكري أرد ولا فكري ونو تنو نسوق عدي يا ده رئيسا شفت نسوق عدي سما تحبذ عدنا لو بالمي لو صاحب تاير نو سوق waxaan ka dhiganaa American baan ka dhiman annaka la badayna annaka ya kadibna tiir wad la ka xastay yar cadana isku siiba Soomaalida caawilada uga soo absiyaasad bay ku socotaa waa loo soo fikiray waxa lagu mid cadana lagu daro qoftan inuu soo gaadhay bis lama celin karo ku dara saasay tahay maanta wad arkaysiin iyadoo Soomaali ku hal jirtay oo markii ololaha iyo doorashada Soomaalida ay ka rabtay xilka Soomaali ku aadasheen intaas in English ku aadasha waxa ku cadaanaysa in Soomaaliga dhahays wan ilaawayba wow 2020 ga ya 2020 wan ilaaway tir Soomaaliga ala walaadi jisbeer wallahi hadalkaagan ka dhageysanay wax Soomaaliga masla qaar ka saf garaysan salaam garanaysa hadda waa hooyo ku dhalatay ku soo barbartay iyadoo weyn bay ka timi maalinka oo laga heeyay si uu hadlaysi Soomaaliga taqaano wallahi anigu aqoon ma qoran haddana maanta 2020 inay raacdaan gursiga ka bacdan xataa Allah walaa wan ilaahu Soomaaliga waruntiidu ilaahay wala iloosinaya
كون سلام يا أصحابي نقدر يدقالك دل شيء نشوف نحبكم اللي هن شرعيا كبقنا شارع صدق كبقى ساعة تلك إنه هي جين نقدر سياسة حملة هذيك أنا يحيي دي بقى أنا يذكر سوق الحين ونقولي قولوا حين يذكر آخرنا يا والله نانس والله نقدر دبات هذا صحابي دبات هذا ممكن دالني وين دالني ضد وحن نقولنا أرجع يحسون لو شيء وحكر أنا هن marka ciyalka qoryaa u dhiibin wallahi waan qalbigayga xanuunay marka arkayno meel Soomaaliyeed muqdisho joogo dhowr boqol oo han iyo niyad leh oo imika soo kacaya oo dunida cusub oo ciyalka la midka imika ka fikirayaan sidii diyaaradu kicin lahaayeen oo si tababaranayaan sidii maartay iskuul u dhigi lahaayeen si tababaranayaan sidii jaamacada uga bixi lahaayeen oo si tababaranayaan sidii maartay qaar dhulka injineer oo noqon lahaayeen qaar maartay cirka